kulan wacan oo wanaagsan dhammaantiinba saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka sirta guusha ee Diamond Show. haddaad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar, leegta iyo sheertana waa noo muhiim. commentingana aragtidaada nagula soo wadaag. maanta waxaan ka hadlaynaa macnaha guusha uu leeyahay iyo qeexitaanada kala duwan ee lagu qeexo khubraduna ay ku qeexaan. waa maxay guul? guushu waa ay macno badan tahay, mana laha qeexitaan u gaar ah oo la isku raacsan yahay, balse waxaan daabiyadeeda kala duwanayaa waxa ay yihiin qoyska, waxbarashada, ganacsiga, siyaasadda, dhaqaalaha, xiriirka bulshada, diinta iyo dhaqanka. taasi waxay keentay in qof waliba uu guusha u arko sida ay ula muuqato. tusaale, qofka ganacsadaha ah wuxuu guusha u arkaa markuu dhaqaalo badan soo saaro ganacsigiisa uu faa'iido. qofka ardayga ah wuxuu guusha u arkaa marka uu waxbarashada uu dhameeyo, taasi oo arko wadadii dheereed uu soo maray inuu ku guuleysto. qofka siyaasiga ah wuxuu guusha u arkaa marka uu ku guuleysto kursiga madaxtinimada. qofka ciyaartoyda ah wuxuu guusha u arkaa marka uu gool ka dhaliyo uu shabaqo ku ogaado. abwaaniinta Soomaaliyeed ee guusha ka hadlay ayaa waxaa kamid ah abwaan Hadraawi. waxa uuna leeyahay inta maan ku gaajaysan yahay guuli waa weli, taasi oo macnaheedu tahay in qof waliba guusha uu sida u arko. waxaa la sheegaa Bill Gates inuu yahay ninka ugu taajirsan dunida, isaguna wuxuu isku arkaa inuu yahay guuleystaha liibaanay. laakiinse adigu maxaad u taqaanaa guul? haddaba waxaan soo qaadanaynaa 3 xigmadood oo guulaha lagu gaaro, kuwaasi oo ka hadlaya guusha. xigmada koowaad waxay leedahay jeebka faqiirka ah kaama hor istaagayo inaad guuleysatid, balse aqliga faqiirka ah oo fikirin ayaa ah midka saameynta ku leh inaad guuleysan. 2 guusha waxaa iska leh kuwa xirta dharka geesinimada leh, kuwaasi oo sameeya guusha, balse fuligu ma xirto guusha geesinimadeeda, taasi oo u sababaysa in guuldarrada uu qofka ka cabsado. Joanna Rowe oo ah ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Hindiya xornimada markay qaadatay ayaa sidaa qaba. qodobka 3, guushu ma laha waqti xadadan oo ay ku eg tahay, guuldaraduna ma laha waqti joogto ah. 4 kuwa saaran oogada sare ee buurta iyagu kama soo dhaadhicin cirka, balse waxa ay ka bilaabeen jaranjarada ugu hooseysa, taasi oo geysay fiinta kore ee buurta. haddaba waad guuleysan kartaa, guuleyso. guushu waxa ay ku jirtaa midigtaada. marka horena Alla subxaanahu wa tacaala tala saaro, dadaal, waa huba inaad guusha gaaraysid. ku mahadsantiin daawashadeena. hadda halkan soo gaarteen, fadlan channelka subscribe ka iloobin, leegta iyo sheertana waa xaggeena. waa mahadsantiin.